in aan wax ka weydiiyo arinta Somaliland waxa jirta waxa la yiraahdaa Maxamed Faarax Aydiid waxa uu la ogolaa SNM in ay goodo oo waqooyiga Soomaaliya ay goodo wax xidhiidhii adiga iyo SNM maxay naga dhaxay arintana maxaad ku oran lahayd walaal dad umada waqooyi degan waa umad Soomaaliyeed iyagoo Soomaaliya oo gumaysi gacanta ugu jiray ayay 26 Juun 1960 xornimo qaateen ayay ahaayeen kuwii midnimada koonfur iyo waqooyi isku keenay dad waxa weeye jecel midnimada iyo wanaaga umada Soomaaliyeed danaha umada Soomaaliyeed waxa ka keenay in ay ka baxaan ku dhawaaqaan goosasho waa dibkii loo geystay waxaana dibkaas u geystay talisyadii soo xukumi jiray dalka 60kii markii xornimada la qaatay intii ka dambeysay cadaalad darro ayay tirsanayaan way ku dhacday waliba ma tirsanayaan mid cad baa ku dhacday burbur baa loo geystay naf iyo hantiba niyadoodii baa la burburiyay maantay marka ma taalo hadalku waa goosanahayaan iyo ma goosanahayaan waxay hadalku taalaa sidii loo daweyn lahaa dadkaas oo cadaalad loogu heli lahaa waxaan aaminsanahay cadaaladaas haddii ay helaan lana tixgeliyo ma garanaysaa cadaaladda ay doonayaan oo loo guntado sidii loola hadli lahaa wada hadal loo furi lahaa oo dood loo furi lahaa oo markaas doodaa ka bacdi waxaan qabaa in la gaarahayo yani xal inta arinta in laga gaarahayo ma qabo in la barowakaareeyo ama la daandaansado ama xumaan loola tago ama dagaal loola tago waxaan qabaa in arintaas si qabow si wanaagsan oo sharaf leh si ma garanaysaa aqliya loola sheekaysto loola doodo loola maaragtay hadii ay ku roon yahay la isku aqli celiyo ma garatay taas dadku markaba cadaalad ay doonayaan